kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka fanka iyo suugaanta ee telefishinka SDN waxa uu si toos ah idinkaga imaanayaa xarunta uu TV-gu ku leeyahay magaalada Muqdisho. barnaamijka waxaa marti iigu ah abwaana daayar Sahra Maxamed Macalin Sahra Abooto ku soo dhawow SDN TV iyo waliba barnaamijka fanka iyo suugaanta. waa mahadsantahay Amaal Yuusuf Macalin waa ku dhawahay barnaamijka fanka iyo suugaanta ee TV-ga. Sahra aad u mahadsantahay. Sahra waxay ka mid tahay abwaaniinta da'da yar soo koraysa ama dhalinyarada hadda Soomaalidu leedahay. inta badan waxa u malaysaa dhalinyaradu inay ka leexatay heesihii iyo waxyaabihii qayb wayna jiraan dhalinyaro saasoo kale iyagu heesay laakiin hadda gabdhihii waxa u malaysaa inay u badan yihiin inay gabiyaan. waxaa jira gabdho badan oo Soomaaliyeed abwaana ah oo erayo sameeyo oo gabayo ku luuqeeyo. Sahra Abooto waxay ka mid tahay gabdhahaas dhalinyarada ah oo iyagu Ilaahay hibada u siiyay inay erayo alifaan ama sameeyaan kadibna ay codkooda ku soo gudbiyaan. Sahra Abooto inta aynan u guda galin bal gabayada quruxda badan aad tirisay Sahra Abooto maxay kuugu baxay? Amaal aad u mahadsantahay. horta ani abwaan ma gaarin laakiin waa hal abuurada da'deera kamid ah abwaan waxa waa isaga xil kala waay aad iyo aad qof kasta horta magaca uu weydiiyaa Abooto maxay kuugu baxday Abooto maxay kuugu baxday dadka qaar waxay iska aliftaan waxay leeyihiin waxay kuugu baxday yani wax dhaqaaleys camal aad iyo aad Abooto markay dadku maqlaan ayeeya ku soo dhacaysa marka ani horta Abooto waxay baxay magaca Abooto oo yar oo 7 jir ah 7 sano jirtay 7 sano jir marka waxay ugu baxday ayeeyadii Ilaahay u naxariistay iyo islaamka diriska oo waxa la rafacba ficil salafidu moogtahay aad iyo aad oo la da'da marka waxay sameeyay jirtay falko يعني wanaajis waxay wanaaji jirtay wanaajis ama fidqa kan la yiraahdo awda la talo awmaan anaka meyr iyo dasari waxaan ka oo dirinta laga dhigto oo dirinta yani waa kala duwan tahay marka falqiyo iyo mid la wanaajiyo wanaajis noola fidqana waa la bas marka galabtii geedka markuu hoos ku baxo geedka dalbeebkiisa iska firiisana shaaxi karsanaya bas aniga marka waxa rabaa marka waa aniga dadka ugu waaweyn jeclaa jiray sheekadooda dadka ugu weyn inta badan inaan soo gurgurto markay shaax shubtaan aan xabad ku soo dhigana kaasa dhiisha ganuunkeeda dhiisha ganuunkeeda dabalka ma laga wadaa mataqaanina ayaa waxa la ugu shubaa markaas wax yar shaax yar ama ogtahay marka baadiyana ilmaha xiligaas caana la sii jiray shaaxan iyo markii aad loo mixisayni bas wax yar la ugu daraa aniga marka waxa rabaa shaaxi rinjiga ah oo guduudnaa caaniyan diida marka kaas waxa leeyahay Abootooyinka shaax ku qasba xabad rinjiga xabad shaaxa caban leeyahay bas marka hooyo waxay ka soo baxtay Abooto maxaa weeyeen ku dhaxdhay bas ciyaalkii marka intay qabteenay waxay leeyahay Abooto waa tanduq waa marka waa diidi jiray waa ooy jiray inta Abooto ay dheenina duqa dheenina calashaan bas ciyaalkii ugu darnaana ku diriska xataa la qabsada sidii baxday marka soo weynaadana magacu ma qurxan oo la xishmeynayo ayuu ilaa noqday ma sha Allah oo sidaas uu ku hirgalaybo Sahra Maxamed Axmed Sahra Abooto markale waa ku soo dhaweynaya waxaan rabaa hal abuur iyo abwaan meel ma kala jiraan kullu waa hibar rabbi maskaxda qofka bini aadanka uu ka soo saaro waxa jira gabayo qurux badan oo runtii aniga shakhsiyan xataa aad ii soo jiitay oo aad adigu samaysay gabayo badan ay isugu jiraan waxa kamida iskaabulada waxa kamida midkii kale oo aad waliba ii soo jiitay oo aad kula hadlaysid ragga waxaan rabaa mid kamida inaad barnaamijka inoogu furtid waliba kan waxaan ka xasuustaa haddaad masaajidka aadamiya eray cajiiban ka xasuustaa runtii bal waxaan rabaa waxa ay ku timid erayadaasi oo aad ku cirisay oo ama ka keenay iyo sababaha ay gabaygaasi ku yimid inaad inoo sharaxdo oo inoo soo koobtid kadibna aad inoo guda gashay aad u mahadsantahay horta maasadaas maasa waay maasa gabayad waay marka waxa jirtay inta badan dhalinyarada hadda jirta halabuurka ay wax sameeyaan waxa ay sameeyaan isugaan ay sameeyaan Facebook la soo dhigaa qofka marka qof kala akhrinaya oo hal abuur marka wixii markaas kaga aadan uu ka jawaabaa
بس مركا ويل أنا ملاينا يو وصحة جو جيجا وأبوان آد ودائرة وهكذا كسلام أيوه على أحمد حسن الشركة على ويل كاسا تحت وصول لقى برتي في فيسبوك عادي بس برتي في فيسبوك مركو تحت صول لقى أولية هاي يعني قبل أولية هدي ما يركو كوكو عادي أو مروي نقطة يعني جروب إسكجو وتلافن كيجا أفورني عادي عادي عذر نتك يقول أجد أنا هاي شكلين عمر مساجد تنقصوا مرسلة مركلة إيه ملايين عادي ده بينك مكانها هاي يوم قبل أساسا صورة جواب الحس كان صورنا سكلها ملايين أولي جواب مصوابة جاء وحواي مركا ما سدسنا كذا جواب أي سيدي وداعي يقول رات مركا عادي أقبل أنا وراء مددوينه وحي هذا مركا هدي مهر يقول دعو مروذا هذا خاص كه مساج وجود تاه مسجدة معان تله مويه كوجو ريقده هو معين تانا هاي مركدا هذا جار كنا ميدنان أسورة ما موسى هلذا ميدك تيدا أنفرو ما موسى هلذا ميدك تيدا أنفرو عجيب ما يلكنات كينو هذا الكاجا ما يدهن مرنا ماما أكله عجيب iyo mudan walaashaa markaad minid maqnaatee ka soo daahda minankana murugada dareemee maankaygu guuxee maxaa helay idhaahdee mudnaan intaad mudnaydana in kale ku sii milo cajiib intii aad macaanay mahadsanidii oranay ma inaad maseejiyo muuqaal la soo diray macno weyn u yeesho moobaylka diidee maqaaxiyaha waaweyn مقناتا ليلكود ميلها وريكتا عجيب مصير كاتلمانتيو مرق igu abuurta عجيب oo waxaana ka mudan igu miri daboosha عجيب masjidkana sidiisaba laakiin waqti doo cadar iga soo carfo aadi hey masjidkana sidiisaba mool ma haweyno market ku yaale waa meel mug weyno mawla lagu adeecay cadarkaad marsaysa يا ماشي صادقة عجيب سؤال مقوينه أنا مضح بنانا هكذا يكون مانيس عبر كاد مرسنة يا ماشي صادقة اللي مساجد أنت فلان والو إلى هذا يستوى كتاب بايا لو كتاب ضوء وكاقبل يا مكتب عادي مركا عبر كاد مرسنة يا مساجد كصادقة عبر كاد مرسنة يا ماشي صادقة مسجد سيدي سبب مول ما هوينه ماركت بيالي عجيب كان واي دريم يا مركز أساسي كتب مساس عجيب waxay ka turjumaysaa wiilkaas abwaanka jigjiga jooga erayadiisii bay jawaab celin u tahay de gabar aad soo guursatay oo gurigaaga joogto oo ka walwalaysa dad habeenkii xilli dambe timaadid ku dhahaysa amu wax ku dhaceen xaajiga xaguu ka baxay inaad tiraadid mobilkaygana ha fiirin masaajidka wax ka soo marsadeen aad iyo aad waayahay sahro midda kale waxaa jirta iskaabulada bal iyadana sare hadda halkaan ka sheegay sira hadhowaan gadaalkaaga sheegi doonaa ma sidaas waxaa la yidhaahdaa guurso ama siga guur guurso ama iga guur waxaa hadlaysa sariirta ama gogosha cajiib maasa sidan waxay ku timid amaalay Facebook oo dhibaday social media aad u dhibaday aad waliba sanadaan dambe aad u dhibaday marka waxaan arkay anigoo Facebook iska fiirfiirinay waxaan arkay sawir sariir qol geeska ka taalo oo kaligeed ah ay ku qoran tahay sariirta dusheeda macnaha guurso ama iga guur oo Facebook la wareejin jiray oo la wareejin bas aniga marka waxaa cabir ka qaatay maada faniya u arkay marka faniya u arkay marka in aniga hadlayso aad ka dhigtay aan u soo qaatay marka labadeena sheekan dhex martay marka adigii sariirtii aniga waxaan waa isha talantaale maalda aad iyo talantaale adigii sariirtii waa soo wadaarsanay marka ayada ugu bilaabayso waxay leedahay gogoshi waxay tiri guurso ama siiga guur aye waxaan iri gacalisoy gayaankay wili ma helin cajiib waxay tiri goor qabsiyo bugaad aqal geli lahayd cajiib waxaan iri garama karo xilliga aan guurso rabo waxay tiri gabadhiyaay haddaan waqti kuu go'nayn guure guri kala dadayo waxaan iri waa gaf weyn inaad iga guur tiraa amaad guur igu xirtaa cajiib waxay tiri laba gooraba go'aan baan kaa rabaa waxaan iri gogoshiyaay garmaad igu haysataa waxay tiri gama ma jiro habeenkii baad galgalan waxay tiri gama ma jiro habeenkii baad galgalan marka waa xanaaqno
kaas ana sariir adigu soo iibsato oo qori oo kula hadlayso ka dacwooto cajiib waaba wax kala yaab leh aad iyo aad kaas waxaan iri gogashiyaay ana abu ku soo gatee maxaa ka galay adiga hadaan gadgadoomo abid cajiib way isku naxday markay istirwada banaanka lagu tuuro oo midaan baraaq oo la keensada waxay tiri hay garayn gargaar baan kula rabay inay waa gartaa inaad adiga soo iibsatay gogashida qurxis moogta gargaar ma laakiin waxaan kula rabaa inaad guursatay waxaan iri waa gartaa inaad ii gibil naxdee galabta guulilato waxay tiri guulaha midaan kula guursanayn ku soo geedatay intiisa ku soo daayaba cajiib midaan kula guursanayn ku soo geedatay aad iyo aad waxaan iri gogashiya midaan ila guursanay armu gaajaysan inta badan waxaa la sheegay rag jabkada guursadaan marka rag laban yihiin afar bay guursadaan marka ujeedkiisa hal gabar buu waayahay raggan ma taageera laakiin asii midaan ila guursanay armu gaajaysan waxay tiri gaajadaa ka roon gurigoo cidla waxay tiri gaajada ka roon gurigoo cidla waxaa iri gaajo badan naftayga guur karta waxay tiri gacal isqaba guula irsaqooda cajiib waxaa iri gacan banaan anigu gacal uma aqaan waxaa tiri gacan banaan anigu gacal uma aqaan sababtoo ah yani kan baahan iyo kan lacagtaste naagaha badan guursanaya ii roon qaayidab inaan afar ama saddex noqdo waxay tiri marka way yaabtay inaan guursay tiri dagaal la soo galay hadda markay ii duceyso nin adiga nin gaajo ama rabo kala sii qaba martay waxay tiri waan gartee لحظة جد بوسها أساق فرتلو كده أما أساق ما لقيه لي أنا ما دام نوين ولا عكستو أو جاب كبورين ها هادي حالي نوركا حالي نوا كوريه لحظة جد حوقلا ده سهرة أبيك لفتركا وسريرته حد بموضة إنك كاس حسن تقول لي إحنا جرنا ديدي مين كيرانا ديدي كيف أنا وحيت رنين ير محل والله عكسة لا أركب ما ممكن نوين إنك بورسو حال waa guriga la xidhin ku tahay gala waxay tiri gees kastaba garaad iga siisay guuleysay galab wanaagsan waxay tiri gees walba garbaad iga siisay guuleysay galab wanaagsan ajiib galab lacayna kala xilligan waa galab toon waxa isku soo baahnayna adina kuma gala abo adigu washi adigana waxa iga dhamaano abo kuma galo halkaas ku dhawaatay sahray waxa jirta taxiyo badan oo aad aliftay inta aynan kuwa kale oo aad naftaada kula sheekaysanayso aynan gelin sahro goorma is ogaatay inaad tahay abwaanad ama mu'allifad da'yar kunti maanta dhalinta maanta da'da yar baad ka mid tahay inaad wax curin kartid oo aad heer sariirtaas aad la hadashidood aad erayadaas quruxda badan isku aadisid goorma kugu dhalatay ama aad dareentay horta amaal aad u maadsan tahay su'aal fiican weydiisay horta hal abuurku saddex uu kala baxaa waxaa la yiraahdaa hibakeento hibakeento iyo howlkeento hibakeento waa wax familka ah hibana waa wax adiga ilaa ku shubay howlkeentana waa wax adiga ama aad daashay duruuf ku keentay aad marka aniga suugaanta dhaxal waaye hidaa keentay anigoo yar aan ogaaday in wax abuuri karo ama wax xiri karo waagi yar ani baadiyaan ku soo koray ma sha Allah marka baagan yaray waxaan sameey jiray waxa inta badan gobolada way kala duwan deegaankan ku soo koray ama gobolkan ku soo koray meel baadiyaan ku soo koray marka islaamanka iyo gabdhaha iyo wiilasha intay isku yimaadeen waxay kuban jireen ciyaar markaas oo golka fuul oo shirib iyo suuq iyo maxaa la golka fuul waa marka meesha la taagan erey lagu alifo iyo gurbaanta iyo wax meeshaas marka aniga marka jafka inta soo istaago aniga yaraan kaasaan aan ku tuurana oo aad meeshii ka qaadaysaa ku tuurana yani hadii gabdho iyo wiilal xifaaltan marka dhaxmara marka aniga waan tuuran waa markaasaan dareemo anoo yar aan dareemay markaas waxa la dhihi jiray markii xataa waalidkaygu arkeen inaan wax sameyn kara waa liiga celin jiray inaan meelahaas aado maadaama inta badan ay Soomaalidu aaminsan yihiin ilmaha markay ay yareen wax samaan yani inay wanaagsanay macnaha oo dadku in ay arkaan looma ogol waqti laakiin waxaan si toos ah ugu soo biiray oo aan soo bandhigay suugaantayda 2015 ma sha Allah waa xilli dhow marna waa xilli aad u fog waa 5 sano 6 sano ku sii dhowday cajiib qabiil dhexe barnaamijkan isla soo gaarnay saar waxaan rabaa bal suugaanta kale ama tixaha kale oo aad leedahay maxaa ka mid ah horta suugaanta aad u tiro badan tahay aan sameeyay inkastoo qaarna aan iska iloobay qaarna aan
aad iyo aad waxaa ka mid ahayd hadda ka hor baa wiil ayaa meel is hornimid wiilka marka asagana hal awro cajiib su-aal weydiiye marka su-aal weydiiye marka wuxuu weydiinaa tix aad iyo aad marka wuxuu yidhi inay yahay cajiibka inay yahay cajiibka oo midab caruudka casalka iyo subaga cajiib cindigayga deeqday carigeed ku noolayd cindigayga deeqday carigeed ku noolayd indhahaygu maba qaban bayna adoo kale gabar kula mid ah waaba runoo sahray haddaanba dhihi lahaa dee gabar qurux badan oo midabkeedii ilaahay ugu deeqay iyo waxaa waaye dee kuma kala tilmaami karee qurux ilaahay siiyey hibana ugu daray ku soco marka ninka wiilkiyaa marka isu sheegaya shan ku dhashtay iyo dad ku noolada u leeyahay moogtahay cajiib markaas wuxuu yidhi inay yahay cajiibka ee midab caruudka casalka iyo subaga cindigayga deeqday carigeed ku noolayd cajiib waxaan yidhi caadleeya laba garas ceelbaraf dushiisaa laygu siiya caano ceeldheere bari baa laygu baray ciyaartee waa shabeellada dhexe cajiib kan casriyahoo cuurya waxaynoo culimadu ku badan tahay cajiib cadalan ku soo koray cajiib cusubkii cudgoonaa califoo la oran jiray cawshiya bicuudkuna cagaarkiisa daaqaan ceel kawsariga eeg cajiib waa tix yar oo inta ka soo qaadan kuma sii markuu wiilkii ku yidhi inay quruxda badan isu kay sheego saan yeelo saan asir deegaankaasaan ka soo jeedaayo halkaasaan aad iyo aad waayahay ma jiraan wax kale oo naftaada aad ka samaysay ama wax intaad aragtay adiga ku cajab geliyey waxaa jirta maaso quraantaydana aad u jeclahay oo dhaqan ah ama wadaniyad ah waa taqaana malaynaa raashinka la yidhahdo masagada ama haruurka aad iyo aad oo cuntada aan dhaqanka u leenahay hadda anigoo tumaya oo inta badan sawirro waxaan arkay ka turjumayo oo adigoo dhaqankii maasha allah anigoo masagada tumaya inta badan marka raashinka la tumaya heesaa jira lagu tumo waqtiga walow aniga markaa inay soo korayna heeso dadkii hore ay lahaayeen aan ku tumi jiray hiyaaladiya aan ku tumi jirnay aad iyo aad markaan anaa waxaa maadaama aniga hal abuura bal inaan aniga u samaysto hees cajiib marka ma xifdisanin aad iyo aad waxaan dhahaa markaa masagoy macaan badan haye malab iyo surgeedeey haye markaan mooyo kugu shubo haye oon si midan kuu tumo oon muyaadka gabayada maaweello iyo hees murux kaaga saaroon ku maceeyo goosmaha oon maalistaydii moorada la aadee dhay kugu mubaaxshaan maskaxdaydu furantaa oo erayo maan hore maankaygu waayaad ugu soo maraarisa cajiib ka adiga ku tuntay caano kugu darsantaan sawir ahaan qofkii hadda qiyaasay aaday u qurux badan tahay yani baa maskaxdaydu furantay oo erayo maan hore markii waad ugu soo maraacsan aad iyo aad aad iyo aad allay lehe maleelooy masagadii dalkaygaay markab quud ku yimid iyo wax maraykan soo dhacay maanyada dhexdeedana in muddaa ku soo jiray maanyada dhexdeedana in muddaa ku soo jiray ma macaanoo aragnaya baastadii bariiska burka qoyan waa aragtaa maalay oo naloo keeno markab lagu keenay aad iyo aad ma macaanoo aragnaya adaa maanta dabadeed niya mirayo kuu falo miray waxaa yidhahdaa beer intaan mirayo kuu falo intaan mireeyo kuu falo mawlaha ilaahayna mandar igu kaa shugo ayaan meelka kugu culin oo muuqi iga tegay muddo igu soo celin marka waxaa jira haddaan cuno calashaan dee midabkaygii baa gadaal u soo noqonaya ku qurux badnaanaya marka waxaa jira marka erayo oo dadka isla fahmaynin sida yacni goosmaha waxaa ula jeedaa badarka marka la tuma muygu ku bato waa la kala jaraa marka waxaa la dhahaa goosin goosin muruxna waxaa la dhahaa badar aan si fiican loo tumin macnaha murux kaaga soo muyaadka gabadh murux kaaga soo rafaa mugta waxaa la dhahaa yacni badar aan si fiican loo tumin oo inta la heelheelo asigoo halweyn oo shaqola la kariyey aad iyo aad waxaa ku maalisne waa maalisteedii waa dhiisha oo xoolaha lagu maalo marka galabooyinka waxaa isleeyahay dadka qaar inay fahmi waayaan aad iyo aad gabagabadii barnaamijkan isla soo gaarnay waqtiga quruxda badan waa kaaga mahad celinaynaa maxaa inoogu soo gabagabaynaysaa barnaamijka erayo ama gabay kale oo aad samaysay hadduu jiro waxaa noogu soo gabagabeynayaa
yar oo kooban maadaama barnaamijku oo ku saabsan ya dhaqanka cajiib Soomaalidu waxay ku maamuldaa amalay baadiyo ku fiican ayaa bilad ku fiican nacam bar ku fiican ayaa beer ku fiican loo jeedo qofka markuu bar waxa la yiraahdaa xoolo markuu ku fiican beertan uu ku fiican marka biladkii iyo xoolihii iyo wixii dhan waa ku fiican aan leeyahay cajiib waa gabarin is amaanto waa ayadaa amaan ka samaysanba waxay leedahay marka xoolo marka la ilaaliyo marka inta badan kalxaa la yiriyo kalxaa taqaana kalxo saarade mana aqaan inaan dhahno waa ka xishoonaya waa taqaana kalxa iish kalxo waa bacolo yar yar daawadaasha laga yaabaa inay doonaan adiguna waa fahmaysaa laakiin inaad xasuusana laga yaabaa aad iyo aad marka kalxaha waa la yeeyay marka gabdhuhu ilaalinayaan ugu yeeriyaan macnaha waa shanqartii maxaa la sheegay marka waxaan leeyahay kalxa yeeris iyo kaale iriga kabaga falagiis haye waxaan leeyahay kalxa sida loo yeeriyo sida ariga loo ilaaliyo yaa ka ariga dhamo aad iyo aad kabay waxa la yiraahdaa ratiga ramada lagu waxay leedahay marka kalxa yeeris iyo kaale iriga kabaga falagiisa kor u qaadka kasha badarka iyo kaalin ceelaadka cajiib kada loobis aqal lagu dhiso roobka naga kaay cajiib koorta geela lagu soo xirtiyo koro qorowgeeda cajiib ka xambeer ah kaliwada lagu dhex dhigo cajiib iyo kormeerkeeda kor u qaadka dhaqanka iyo hidaha falayga laabtiisa cajiib kudashaysi aan laga dargayn sheeko kala nooca cajiib karin biitsa toostaato iyo hilib kaluumeedka cajiib kabaab iyo kofiya diiran oo kaalayo arag ah cajiib kulligood anaa koobay oo laygu kalinayne ninkow rati kurusle haye kuuriyaan la rido faras kablaynaya haye haddaad keenta reer kuna aqbalo waa kifaax weyne kalgacaylka naga guul heloo cidina kaynayne ikaxayso keligaa naftani adiga kuu koobe ikaxayso keligaa naftani adiga kuu koobe cajiib dhaqankiina way ka hadlaysaa dee waxaana u malaysaa inay gabadha inta isfaanisa ay leedahay warninow aniga intaasoo dhanaana ka adkaaya iyo wada camal marka shuruudaa kusii xidhan waxaa leeyahay dugbeerusle kuuriyaa la rido faras qablaynaya keenaa la leeyahay waa inaa iga bixisaa da gabdhihii hore aad iyo aad laga bixin jiray sahre maxamed axmed sahre abooto runtii waa gabadhaas da'da yar oo aad u jeedaan erayadii iyo tixihii quruxda badnaa oo ay nala wadaagaysana wuxuu rabbiga weyn ka soo maaxiyey maskaxdeeda quruxda badan waa eraya cajiib ah marka dhaqanka loo fiiriyo jacaylka loo fiiriyo guurka iyo gabdhaha ragga ay guursanayaan da'da iyo nooc ay kala yihiinba marka waa cajiib waa hibooyin alla uu dadka ku manaysto qaarkood sahro aad baan kuugu mahadcelinayaa waqtigaaga quruxda badan oo aad noo soo hurtay mar walbana waxaan ku leenahay ku soo dhawow SDN TV oo kaaga mahadcelinaya sida aad codsigeena u ajiibtay barnaamijkaana aad nagala qayb gashay aad iyo aad baa u mahadsantahay. Thank you.